بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها كحرا جنالك مع العيس سديسي واحد كسر دواتان آذابتا هرددا إيو دعوين كذا ولا لها قيمة بدن إن شاء الله تعالى مقال كان وحان وهذا لدونا بإذن الله تبارك وتعالى آذابتا هرددا إيو دعوين لا أخرستو ولا ليال waxaa ka mid ah aadaabta hurdada kow in qofka intuusan tagin firaashka ama sariirta uusan tagin waa inuu qofka marka ugu horeysa u diyaar garoobaa sida soo socota. Marka hore waxaa laga rabaa qofka muslimka ah intuusan hurdin inuu soo wees qaato, kadibna uu yimaado sariirtiisa, kadibna waa inuu jafaa intuusan saaxanin ka hor. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay u soo daba mariyeen waxyaabo kale ama sida cayayaan bahalo ay ugu dambeeyna laga yaabaa. Kadibna waxaa laga rabaa qofka intuusan sariirta dhinaciisa dhigin inuu iska soo damiyo sida dabka korontada waa inuu iska soo damiyaa. maxaa yeelay dabka waa cadow. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna hadhihi an-nara aduwwun lakum faadfi'uha. inna hadhihi an-nara dabkan oo kan ah aduwwun lakum cadow buu idin yahay ee faadfi'uha iska damiya oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam. hadaba walaalayaal qofka muslimka waxa laga rabaa markuu rabo inuu saaxdo oo hurdo waxaa laga rabaa inuu ku saaxdo sida sunnada ah. qofka waxaa laga rabaa markuu sariirta yimaado dhar macquul ah oo dharka jiifka ah oo wanaagsan inuu soo xirto oo aan ahayn dharkiisa shaqada ah. dhar jiifka loogu talagalay ayaa jiro rag iyo dumarba ay ku saaxdaan. raggan waxaa laga rabaa dhar ku haboon inay soo xirtaan, dumarkan sidoo kale dhar ku haboon inay soo xirtaan, kadibna sariirta ay yimaadaan. qofka muslimka waxaa laga rabaa kadibna markuu dharkii jiifka uu soo xirto ayaa waxaa laga rabaa in bismillah uu yiraahdo markuu sariirta uu yimaado. maxaa yeelay hadduusan bismillah uusan sariirta ku bilaabin waxaa dhici karto in shaydaan uu la seexdo. shaydaanka waa jaanis gaad, waa fursad gaad. shaydaanka mar walba wuxuu ilaalsadaa qof dagan ama halmaamsan bisinka ama magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala iska iloobay. qofkaas ayuu mar walba jaanis ku raadsadaa shaydaanka. kadibna markaas hadduu cuntada ay ahayd qofkaas wuxuu bisinka ka iloobay, cuntada ayuu la cunayaa. haddii ay jiif iyo sariir ay ahaydna sariirtaas oo bisinka uu ka iloobay ayuu shaydaanka jaaniskaas ugu faa'iideysanayaa. adiga waxaa u moodaa in kaligaa sariirta aad jiifto, laakiin dhinacaada waxaa jiifo shaydaan kale ayaa jiifo. shaydaanku wuxuu noqon karaa lab ama dhidig uu noqon karaa. marka sidaas liajligeeda waxaa wanaagsan tilaabo walbo iyo mar walbo in aad laazinto ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa. bisinka mar walba inaad afkaaga inuu ka bixin, mar walba inaad laazinto, mar walba inaad joogto ka dhigato. markaa sariirta aad timaado oo bismillaahi sariirta aad ku bilaabdo waxaa laga rabaa inaad u seexato dhinacaaga midigta ah, gacantaada midigtana aad barkato. waxaa kaloo laga rabaa inaad akhrisato adkaaru nawm. adkaaru nawm way fara badan tahay. waxaa ka mid ah adkaaraha la sunneeyo in la akhristo markii la hurdi rabo sida tan. waxaa ugu soo horeeyo mucaawadataynka iyo suuratul ikhlaas. awalan waxaad akhrinaysaa suuratul ikhlaas ayaa ugu horeyso. waxaa ku xigo birfalaq birbinaas oo la isku yiraahdo mucaawadataynka. mid walbana waxaa ka akhrinaysaa 3 jeer adigoo markaasi labadaada kaf sidaan dhahayo, labadaada gacnood
ayaa sidaas isku saaraysaa. kadibna mar walba oo suurad aad dhamaydo oo kamid ah qul huwalla iyo falaq banaasba saddexdaas bisin mar walba oo suurad kamid ah aad ka akhriso labadaada gacan ayaad ku tufaysaa. kadibna waad ismarinaysaa korkaaga oo dhan intii aad ka gaarto, wejiga, madaxa, gacmaha, xabadka, dusha, qaarka hore qaarka dambe inta aad ka gaarto waa ismarinaysaa. waxaa kaloo akhrinaysaa aayatul kursiyi. haddaba walaalayaal, adkaarta oo la akhristo qabla an-nawm ama hurdada ka hor la akhristo waxaa ka mid ah suuratul mulki ayaa ka mid ah. suuratul mulki ama tabaaraka alladii biyadihi lmulku ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah alif laam miim oo loo yaqaano alif laam miim as-sajda. waxaa kaloo ka mid ah labada aayadoo ugu dambeyso suuratul baqara ayaa ka mid ah adkaaraadka oo la akhristo hurdada ka hor. waxaa kaloo ka mid ah adkaaraadka la akhristo qabla an-nawm ama hurdada ka hor sida tan: bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacuhu fain amsakta nafsii farxamhaa wain arsaltahaa faxfadhaa bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin ayaa ka mid ah. bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacuhu fain amsakta nafsii farxamhaa wain arsaltahaa faxfadhaa bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin ayaa ka mid ah adkaaraadka la akhristo hurdada ka hor. walaalayaal, waxaa kaloo ka mid ah adkaaraadka iyo ducooyinka la akhristo hurdada ka hor bismika allaahumma amuutu wa axyaa ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah ducooyinka la akhristo hurdada ka hor allaahumma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadaka ayaa ka mid ah. walaalayaal, waxaa kaloo jirto qofka muslimka ah ilaa waa hurdaa soo ma aha, wuu soo weesa qaatay, sariirta ayuu yimid, adkaaru akhristay, waa ismarmariyey, dhanka midig ayuu usaaxday, gacantiisa midig ayuu barkaday soo ma aha. kadib waxaa dhici karta marka qofkii wuu hurdaya markuu hurdo waxaa dhici karta marka dhinacii uu u saaxday inuu kasoo rogmado. maadaama marka oo nala faray tilaabo kastoo aan qaadno iyo xaalad kastoo aan ku sugannahay in adkaarta aan laazino oo carabkeena mar walba inuu adkaarta ka qoynaado loo baahan yahay. qofka intuu hurdaayo wax lagama raba horta. qofka hurdayo wuxuu ka mid yahay saddexda qofood oo dembiga laga kor yeelay. intuu hurdadaas ku jiro, intuu xaaladaas ku sugan yahay, wax dembi ah loo qori maayo, liannahu miirkiisu wuu tagay, ogaalkiisu wuu tagay, ma joogo. qofka hurdaayo sidiisa waxa weeye wax dembi ah ma saarno ilaa uu ka soo kacaayo, oo hurdada kasoo toosayo wax dembi ah ma saarno. waa marfuucu lqalam weeye, qalinka kor ayaa looga hayaa, wax dembi loo qori maayo ilaa uu kasoo kacayo. qofka noocaas marka qofna waa hurdo weyn yahay, qofna waa hurdo yar yahay soo ma aha. si kastaba ha ahaatee, qofka mar walba oo isrogayo oo dhinaca midig intuu kasoo gadoomo oo dhanka bidix uu soo gadoomayo ama dhabar u seexanayo, dhinaca uu u jiifay dhinaca mar walba uu soo gadoomayo, waxaa sunno ah inuu ducadan akhristo. waxayna tahay ducadan: laa ilaaha ila allahu alwaaxidu alqahaar rabu الsamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar. intaas ayuu odhanayaa. waa mar allaal markuu dhinac ka soo gadoomayo una gadoomaya dhan kale. ducadaas ayaa sunno ah. waa qofkii soo xasuusta iyo qofkii macnaha garanaya. qofkaan laakiin garanaynin ilah xusaya subxaan allah, alxamdulilah, laa ilaha illa allah, wallahu akbar u dhihi karaa. laakiin qofkii yaqaano oo horey u yaqaanay bartay ayaa loo sunneeyaa inuu ducadaas ku ducaysto. qofkii laakiin hilmaamin kollayna asagana laa xaraja calayh, waaba hilmaami soo maha. dadka qaarkood waxaa jira oo mar hadday hurdoodaan aan miir lahayn, ogaal lahayn oo waxba soo xasuusanaynin.
hurdada ay ka tan badan tahay. Laakiin qofkii ilaahay waafajiyo oo soo xasuusto waxaa laga rabaa in ducadaas uu akhristo mar walba oo dhinac ka soo gadoomayo una gadoomayo dhinac kale. insha allahu tacaala walaalaha qiimaha badan oo i daawanayo kelimadayda intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa, taasoo aan ugu hadlayay aadaabta hurdada iyo ducooyinka loo akhristo. waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad muuqaalkan aad ula socoteen una daawanayseen. muuqaalka sii share gareeya, like gareeya, janalka Macal Ciis Sudaysine subscribe noo saara. Allah idin barakeeya. sii faafiya muuqaalka qiimaha badan si walaalo kale oo badan uu u gaaro. addaalu cala alkhayri ka faacilihi weeye, qofka dadka khayrka tusiya wuxuu la mid yahay asigoo sameey oo kale. وشكر الله حسن مشاهدتكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.